waxa ay sheekadani la xiriirtaa Leyla iyo Xawo laba aan midna la qurin. waxa ay ku saabsan tahay siduu uu markaasi aadan iyo Xawo iyo waliba sheekada kale ee markaasi ku lamaanan ee Lilith iyo abuurka sidii uu u dhacay. waxaana sheekada idin soo qoray oo qoraalkeeda iska leh qoraaga caanka ah ee Soomaaliyeed Cabdisaciid Cabdi Ismaaciil. aad baan uga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee uu markaasi sheekadaas u qoray. waxaa idin soo tabinaya oo codkiisa idinku soo gaarsiinaya waa anigoo ah Axmed Tooyo oo markaasi aad uga barateen in had jeer uu qisooyinka idin soo tabiyo. qisada ayaa saaxiibayaal waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Leyla iyo Xawo laba aan midna la qurin. culummada diimaha baara diimaha dunida ka jira waxay u qaybiyaan laba qaybood oo waaweyn oo kala ah diimaha bariga iyo diimaha galbeedka. waxay kaloo u qaybiyaan diimaha ilaahyada badan iyo diimaha tawxiidiga ah ee halka ilaah rumaysan. diimaha salaadishtiga yuhuudda masiixiyada iyo islaamku waxa ay hoos galaan diimaha reer galbeedka ama diimaha tawxiidiga ah. waxaana la rumaysan yahay in afartaas diimood ay xiriir leeyihiin oo ay wax badan kala amaahdeen. saddexda diimood ee dambe yuhuudda masiixiyada iyo islaamku waxa ay weriyaan sheeko isku dhow oo ka hadlaysa abuurka koonka iyo aadan iyo Xawo. qisatul khalq the creation history waa sheeko caan ah oo dadka oo idili ay ka dharagsan yihiin. aana markaasi loo baahnayn in markaasi waxa weeye laga sheekeeyo oo lagu sii dheeraado. ugu yaraan Soomaalidu badankeed waa maqleen xadiiska nebiga ee yiraahda haweenka wanaag u dardaarmaha maxaa yeelay dumarka feer qalloocan baa laga uumay. feerta meesha ugu qalloocan waa halka ugu sarreysa. hase ahaatee qayb wadaadada yuhuudda ka mid ihi waxay xusaan sheeko xiriir diini ah oo markaasi ku doodaysa in Xawo aysan ahayn afadii ugu horreysay ee nebi aadan uu guursado, balse Xawo ka hor eeba uu u guuriyey haweeney lagu magacaabi jiray Lilith ama Leyla. Bibelkuna wuxuu si kooban u sheegaa jiritaanka laba abuur oo eebe markii hore waxa uu isku mar uumay aadan iyo gabar, mar kale waxa uu abuuray gabar keli ah. sheeko xiriirtan oo asal ahaan ka soo jeeda ilbaxnimadii Baabilodu waxa ay leedahay sida tan. eebe waxa uu uumay nin uu u bixiyey aadan, laakiin markuu aadan uumay kadib wuxuu istusay in aysan wanaagsanayn in nin uu keli ahaado. kolkaas eebe isla dhoobadii uu aadan ka uumay buu wuxuu ka abuuray gabar qalanjo ah oo joog iyo jamaal iyo garaad intaba loo dhameeyey. wuxuuna u bixiyey Lilith ama Leyla. aadan iyo Lilith duurbo waxa ay bilaabeen inay dagaalamaan, waayo Lilith waxa ay ku tiri hoostaada seexan maayo. aadanna waxa uu ku yiri ka hoos mari maayo, laakiin waa kaa koraynaya maxaa yeelay booskaadu waa inaad iga hoosaysaa, aniguna aan kaa koreeya. Lilithna waxa ay ku jawaabtay adiga ayaa iga hoos maraya, waayo waa simannahay oo labadeennuba carra isku mid ah baa nala ka uumay. qir iyo qir baa xaal noqday. goortaasna Lilith magaca Alle ayay ku dhawaaqday, arrinkaas oo suuro geliyey in ay yeelato baalal ay ku haado. caqiidada yuhuuddu waxay dhigaysaa in aysan habboonayn in magaca Alle lagu tiraabo. Lilith waxa ay degtay badcas, iyowna waxa ay markaasi iscalmadeen Ibliis oo ay wadaageen in labadooduba ay waxa weeye Alle ku caasiyeen, aadanna la culuubaan. dharaar kasta waxa ay dhali jireen ubad boqol ka badan, laakiin waa dambe eebe caradii uu u qabay Lilith darteed buu Ibliis ma dhalays uga dhigay. Lilith si ay falkaasi uga argudato habeen walba waxa ay shahwada ka xadaa wiilal badan oo ilmo aadan ah. dhanka kale shaydaanka lagu magacaabo Samaa'iil bay waxay kula heshiisay in uu Xawo duusado oo uu gogol dhaaf ugu galmoodo. gogoldhaafkii dhex maray Xawo iyo Samaa'iil waa kan keenay caadada bil kaste mar ku dhaca dhammaan bilis Xawo iyo weliba in ay ku mabaan basar xumida gogoldhaafka. tan iyo xilligaas fog eebe wuxuu laayaa ubadka Lilith. Lilithna dhankeedu waxa ay laaysaa warasada aadan. xaalkoodu waa barbardhac oo midkoodna kan kale kama u adkaado. yeelkeeda aadan muddo ayuu cirka eegmo ugu hayay isaga oo markaasi abdaynaya
in liiliid ay soo noqoto, isna diidsiinaya xaqiiqda abwaanku uu ku cabiray erayadan hoose. Ha ku daalin jeedaal, indha sooma jiidaan qalbiga janjeera. Ugu dambayn, aadan goortii uu ka quustay soo laabashada liiliid ayuu eebbe baryey, waxa uuna ka tuugay, eebbe, haweenaydii aad iigu deeqday waa iga durdurisay. eebbe 3 malag oo la kala yidhaahdo zanzavi iyo zimangalaaf buu wuxuu ku amray in ay liiliid soo caraceliyaan. wuxuuna ku yidhi, haddii ay ogolaato in ay idinsoo raacdo waa hagaag iyo sida la rabo. haddii ay diiddo, ha soo jujuubina, balse u sheega in 100 ka mid ah carruurteedu ay maalin kaste dhiman doonaan. 3dii malag waxay u tageen liiliid oo joogta baartamaha badda ay masaaridu ku qarqoomi doonaan. badda cas waxay u sheegeen 2 qodob ee eebbe kala dooransiiyey, iyaduna waxa ay sheegtay inaysan aadan ku noqonayn xataa haddii eebbe uu ubadkeeda eber ka dhigayo. 3da malaga waxa ay ku tiri, anigu idin raaci maayo. haddii eebbe ubadkayga laayana, waxaan dhaar ku marayaa in aniguna dhankayga aan maalin walba dili doono 100 ilmood oo ka mid ah ubadka aadan duriyadiisu ay dhali doonaan. marka qurax oo ay iga badbaadayaanna ay tahay marka idinka magaciinu uu ii muuqdo. eebbe markii uu dhegaystay warbixintii 3da malag ay liiliid uga keeneen, ayuu cabaar wuxuu ka fakeray sida aadan uu ku heli karo marwo raalliye ah oo markaasi nolosha la qaybsato, ubadna u dhasha. dabadeed aadan buu wuxuu ku riday hurdo uu la suuxay. intii uu suuxsanaa, feer caleentiisii ayuu wuxuu ka uumay xaawo oo noqotay marwo raalliye ah oo aad ugu dhaga nugul, maadaama ay tahay xubin jirkiisa ka midihi. xaawo sida liiliid kuma ay doodi karin in ay aadan la siman tahay, maxaa yeelay iyadu waxaa laga uumay feer caleenta yar oo aadan aan markaa u dhigmin. xanta hoose ee la soo wariyey aadan iyo xaawo waxay sheegaysaa in xaawo habeenkii aysan seexa jirin jeer ay tiriso lafaha feeraha aadan, waayo waxaa laga yaabaa in meel kale ay ugu qarsoon tahay xaajiyad kale oo feerihiisa midooda laga uumay. xaawo oo ma aysan baahnayn inay aadan weydiiso inuu xaas kale leeyahay iyo in kale. sidoo kale uma aysan baahnayn in taleefankiisa ay baarto ama ay maryihiisa cadar haween ka uriso. waxaa ku filnaa inay tiriso feerihiisa oo keliya. si kastaba ha ahaatee, liiliid markay ogaatay in eebbe aadan uu xaas kale u guuriyey, baa waxaa ku dhacay masayrka tan iyo maanta dumarka loogu yaqaan. waxayna go'aansatay inay aadan u dhigto darsi uusan ebedkii hilmaamin. liiliid inta muuqaal abeese isku yeeshay bay xaawo jannada ku boqotay, waxayna u macaysay geedkii eebbe u diiday cunistiisa. liiliid waxa ay xaawo ku tiri, naxaawo, ileen adiga iyo aadan 2 doqon baa tihiin, nama og tahay sababta geedkan la idinkugu diiday. geedkan ciddii cuntaa waxay yeelataa aqoon iyo xigmad, ebedkeedna ma dhimato. naama naftiinna iyo ubadkiinna baydaan la jeclayn aqoon, xigmad iyo in aad waartaan. ilaah waa idin xasdayaa oo ma uu doonayo in sidiisa oo kale aad ilaahya u noqotaan. ciddii hesha aqoon iyo xigmad buuxda, islamarkaana ka badbaada geeridu, waxay noqonaysaa ilaah. waxa ilaah uu abuurkiisa u dheeryahay waa aqoonta iyo xigmadda dhammayska tiran iyo waaridda uusan dhimanayn. xaawo si fudud bay ku rumaysatay warka liiliid, sababta oo ah 3daas faa'iido ee geedka lagu sheegay, 3duba waa kuwo aad loo jecel yahay oo cid loo sheega oo diidi lahayd aysan jirin. dhegaystow, adigu haddii aad booska aadan iyo xaawo ku jiri lahayd, sidaasi ka duwan miyaa yeeli lahayd? xaawo iyo aadan markii ay geedka ruudeen, eebbe inta uu carooday buu jannadii cadmeed ka ceyriyey. weliba eebbe iyaga oo wada jira ma uusan ceyrine, midba meel cidla ah uu ku xooray. sidaa baa liiliid sabab ugu ahayd in labadeennii waalid jannada laga saaro. weliba intaas ugama aysan harine, waxay go'aansatay in aadan ay uga aarsato in ubadkiisa ay ku layso rixinka hooyadood ama dhalaannimo, si aadan iyo xaawo ay u dhadhamiyaan xanuun la mid ah kan iyadu ay dareento mar kaste oo eebbe uu dilo 100 ka mid ah ubadkeeda.
iyaga iyo ku allahoode waxay kula wariyaan in aadan markii uu jannada laga soo saaray ee isaga iyo xaawo midba jiha laga tuuray uu 130 dabshid kadib isaga oo weli xaawo baafinaya ay habeen liileed u timid ayna wada xaajoodeen laakiin taariikhyahanada dhacdadaas soo tabiyey nooma sheegin labadooda kii habeenkaa sara maray iyo in xal dhexdhexaada ay isla gaareen si taa la mid ah wadaadada yuhuuddu waxay sheegaan in liiliid ay habeen la seexatay nebi saleebaan iyada oo isku ekaysiisay boqoraddii balqiis sida la wada ogyahay afka cibriga iyo afka carabigu waa wada dhasheen alaabana askunka ereyadu waa wadaagaan sidaa daraaddeed la yaab ma leh in magaca liilith carabigu uu markaa la macno yahay magaca carabiga ah ee leyla ereyga cibriga ah ee liilith micnihiisu waa mugdi iyo habeen sitaa la mid ah magaca leyla ee gabdhaha loo bixiyaa micnihiisu waa habeen ama mugdi ama madow tusaale ahaan carabtu habeenka gudcurka daran ama xaalad kale oo bini'aadanimo ay jirto waxay ku tilmaamaan inay tahay leylatuleyla oo ay ka wadaan habeen mugdi badan mugdiga la tilmaamayaana waxa uu noqon karaa mid maadi ah sida mugdi habeen ama mid macnawi ah sida daruufo qallafsan si gaar ah carabtu magaca leyla waxa ay u bixiyaan qamrada iyo gabdhaha maxaa yeelay marqaanka iyo shukaansigu labaduba habeenka ayaa la raadsada labaduna waxa ay leeyihiin sakhrad iyo miirbeel waxaa la rumaysan yahay in magaca carabiga ah ee leyla ah iyo kan cibriga ah ee liilith ay labaduba ka soo jeedaan kan akaadiga ah ee liilitu afka sameetiga ee carabiga iyo cibrigu ay ka wada tirsan yihiin waxaa xiriir la leeyahay afafkii ay ku hadli jireen dadkii ku dhaqnaa dhulkii loo yaqiinay mesopotamiya sida soomaalida iyo akaadida labadan af ee dambe waxaa ku jira isla magaca liilitu oo ah magac diini ah oo ay u bixiyeen shaydaan dhadig oo habeenkii mugdiga ku shaqaysta sida la qiyaasana sheekadan markii ugu horreysay waxaa lagu xusay sheekada gilgaamish iyo ankido iyo dunida hoose taariikhdeedana lagu helaadinayo abbaaraha 4,000 oo sano ka hor sheekadan waxaa ku soo arooray warar sheegaya in ilaahadii mesopotamiya oo inanihi ay jiinka webiga furaad ku beertay geed baxarsaaf ah oo ay damacsaneed inay carshi ka samaysato 10 dabshid kadib ay tagtay meeshii ay geedka ku beertay si ay danteeda ugu fushato laakiin waxay aragtay geedkii oo dushiisa ay shibir guumaysihii guri ka dhisatay laamihiisa dhexdoodana ay liilid caruur ku haysato jiridiisana ay abeeso ku nooshahay dabadeed boqorkii urug ee gilgaamisha baa wuxuu maqlay sheekada geedkan wuxuuna qaatay seeftiisii iyo gaashaankiisii si u laayo duulka geedka degay wuxuuna dilay abeesadii geedkiina xididada ayuu u siibay guumaystii iyo liilitha iyo carruurteediina inta markaa haadeen bay baxsadeen liilith waa shaydaan dhadig oo aan say lahayn ama ibliis baa nin u ah laakiin kuma filna taasina waxa ay ku bixisaa inay dhiibsato arkidda haweenay uur leh ama ilmo yar markaa daadahaynaysa waxaa kaloo aan la tusin barbaar keligood gogol ku cidlooda sidaa awgeed liiliid ama leyla habeenkii bay mirataa waana midda sababta in haweenka uurka lihi ay ilmuhu ka dilmaan ama dhallaannimo ay kaga dhintaan laakiin waxa ay fulisaa ballanqaadkii ahaa in aysan markaa ubadka dilaynin inta ay u jeedo magaca 3 malag ee badcaas kula kulmay taa awgeedna ummado badan waxaa dhaqan u ah in dhallaanka xir ahaan wejiga iyo dhabannada looga sawiro astaamo loola niyoonayo inay matalayaan 3daas malag sidoo kale isla qardhaastaas xirka ah waxaa loo xiraa haweenka uurka leh iyo kuwa fooshu hayso sidoo kale leyla habeenkii iyada oo xiran maryo cadcad oo xiriir ah bay ragga siiba xirta dawaabka ah ee digriga iyo daalacashada kutubta diinta ka doorbida daawashada gabdhaha waxay ku booqataa gogosha oo laabta u salaxdaa markaas bay riyoodaan oo ay macdantooda meel cidlaa ku qubaan tusaale ahaan buugga talmuudka ee shabaad waxaa ku qoran ninka waxaa ka reeban in keligii uu guri seexdo maxaa yeelay waa intaas oo uu leylo gacanta u galo hoodan kolka ay
cilmi soo booqanayso uma aysan imaan jirin iyada oo bilis xaawo ah, balse waxay u imaan jirtay iyada oo bilis leyla ah. bilis xaawo waa xishootaa oo habeenbar kuma guurayso nin islaameed oo fiid hore dareen la ijiibsaday, laakiinse leyla sharci alle iyo xeer aadami midna ma xidho. cilmo dhani baa lahaa gabay todociisu ay ka mid tahay xamada beena baan idhi malaha waa la hurudaaye hareertayda oo maran baan is idhi habo gacanteeda goortaan hubsaday meel cidla ah inaan ku howshooday hoggaansideedii dambaan soo hambaabireeye u haylhaylay gogashii sidii halaablihii aare siday iga haleeyeen maryihii hiifay oo tumaye haabhaabtay labadii go'oo shaarkii maan helin. suugaanta soomaalida gaar ahaan heesaha waxaa ku badan adeegsiga weedha qays iyo leylo kala noqone oo loo adeegsanayo macno ah aan isjeclaano oo aan isguursanno. run ahaantii qays iyo leyla waxaa noqda lamaanaha isisaaga, laakiin lamaanaha iscalfadaa ma ay noqdaan. weligeed iyo waaqeed leyla nin caashaqay guur kuma calfan. waa suuragal inuu riyo kula baashaalo, laakiin inuu soo jeed kula caweeyo waa habeenkii xalay ahaa oo tegey. waayo guurku wuxuu u hoggaansamaa xeerka iyo sharciyada dadka iyo diimuhu ay dhigaan, laakiin caashaqu ma leh sharci iyo xeer xukuma. qays haddii uu calfan lahaa leyla ma ay curateen sheekada qays iyo leyla. si taa la mid ahna haddii cilmi guursan lahaa hodan ma uu tiriyeen gabayo caashaq ku dheehan yahay. ma jiraan dad ama diin meel cidlaha ka abuurma oo dadka iyo diimuhu mid kastaba waxa uu leeyahay asal hore oo uu ka farxamay. sheeka xariirta liilidna inkastoo aalaaba aan si toos ah loogu xusin buugta diinta, haddana waa dhif iyo naadir in la helo diin iyo dhaqan ay ka maqan tahay, waayo waa wejiga kale ee kan xaawo dhammaystireeye. sheekadan ummado badan oo ay ka mid yihiin faraacinada, soomaalida, gariiga iyo roomaanka ayaa magacaan kala duwan u yaqaana. sidoo kalena yuhuudda qaarkood baa ku sheega in liiliid ay ahayd ooridii nebi aadan. carabtuna waa wariyaan iyaga oo magacaan kala duwan ugu yeera sida umusibyaan iyo nadaa. waxaa loogu xusay in badan oo ka mid ah suugaanta dunida, sida john milton oo ku xusay gabaygiisa paradise lost. si taa la mid ah victor hugo ayaa ku xusay gabaygiisa dhammaadka shaydaanka the end of shaydan, isaga oo ku tilmaamay in ay tahay dhiigjaqdo. sidoo kale waxaa haweenay jinniyad leh u muujiyey fanaankii danta rosetta oo sameeyey sawir uu u bixiyey marwo lilid lady lilith. waxaa la alifay riwaayado, masraxiyado iyo filimaan la xiriira lilith. waayadan dambe waxay sumad u noqotay dumarka u ololeeya xorriyadda iyo xuquuqda haweenka oo iyagu aan doonaynin in loo aqoonsado in ay yihiin gabdho anshax suuban. soomaalidu siba wadaadada salafigu waa necab yihiin sheeka xariirada yuhuudda, taas oo jirta haddana iyaga oo aan is ogeyn bay isla sheeka xariirta yuhuuddu cilmi dhab ah ka dhigtaan oo ku dhaqmaan. arrinkaasna waxaa u daliil ah in ay isla sheekada liiliid aaminsan yihiin. wadaadadu waxa ay ka hadlaan, welibana ay xarumo u furtaan waxay ugu yeeraan umusibyaan oo ay ku candacoodaan inay tahay jinni dhib badan oo gasha dumarka dhaqmaadda ah oo ay uurka u diido ama u keento in ilmuhu ay ka dilmaan ama ka saqiiraan. sidoo kale waxay booqataa ragga oo ay macdanta ka xaddo ama xataa ay madhalays ka dhigto. wadaadka soomaaliga ihi waxa uu dadka cilmiga iyo diinta uga dhigaa waa isla sheeka xariirta liiliid oo afka carabiga lagu qoray. soomaalidu gaar ahaan wadaadadu waxa ay ismoogeysiiyaan in carabta iyo yuhuuddu ay yihiin ilmo adeer awowyaashood ay hal ceel ka wada cabeen. mararka qaarkood liiliid waxaa lagu tilmaamaa inay tahay haweeney madhalays ah oo ilmo neceb. ummadaha adduunka oo dhan dhexdooda waxaa ka jira dareen ah in haweeneyda aan wax dhalin ama dhasha nicibi ay tahay qumayo aan qayr lagu ogeyn. gabadha guurka ka daahda ama aan guursan, ummado badani waxay ku tilmaamaan shimbirta guumaysta, waxayna ugu yeeraan guumays. fikradda gabadha guumays loogu matalayana waxa ay ka soo jeedaa isla sheekada liiliid oo iyada ayaa lagu sheegi jiray inay tahay guumays ilmaha dafta. gabadha aan waxba dhalin iyo bulshada ay la nooshahay waxaa ka dhex taagan tuhun colaadeed
oo bulshadu gabadhaasi waa ay liidaan iyaduna cuqdad bay u qaadaa inta badan liilid waxaa lagu matalaa guumays ama abeeso guumaystu dhan waxa ay astaan u tahay xumaan dhanka kalena xigmad abeesaduna dhan waa cudur oo waxa ay leedahay qaniyo sumaysan dhanka kalena waa dawo waxaa kaloo la sheegaa in liiliid iyo xaawo ay kala matalaan laba marxaladood oo taariikhda aadanaha ka mid ah liiliid waxa ay matashaa waagii haweenku ay dunida hogaamin jireen ee caraweelo ay boqoradda ahayd laakiin markii ay raggu awoodda haweenka kala wareegeen ee iyaguna noqdeen kuwa talada reerka looga dambeeyo waxaa dhimatay leyla waxaana dhalatay xaawo oo ah raalliyo aan diidin dhan kasta oo loo rago waa marxaladda dhiigga caadada iyo kan dhalmadu ay dhumiyeen barakadii iyo muqadasnimadii ay waagii hore lahaan jireen loona arkayay inay yihiin xaaraan ay waajib tahay in laga dheereeyo xarumaha cibaadada iyo kutubta muqadaska ah naagahan dhankii loo rogiyo dhinacna diidayne dhadigahaanshaha lagu arkiyo dhiiga caadada haddeeyan dhiilka caanaha lahayn laguma dhaarteen guud ahaan sheeka xariirtu waa aalad bulshadu ay u adeegsato inay iskugu tabiso fariimaha la dhibsan karo haddii si toos ah la iskugu gudbiyo dabeecadaha sheeko xariirahana waxaa ka mid ah inay u nugul yihiin in si joogto ah dib macnayn loogu sameeyo iyada oo laga duulayo hadba baahidu bulshadu sida ay tahay sheekadu waxay sheegaysaa in liiliid laga uumay isla dhoobadii aadan laga uumay taas oo ku bixisay in ay aadan isku dheririso isaga iyo ubadkiisana ay ka aargudato fariinta sheekadu xabaarsan tahay waa dareenka raggu ay weligoodba ka qabeen haweenka ay la simaan kolka haweenku ay la simaan ragga markaa ay helaanna xuquuq iyo waajibaad u dhigma kuwa raggu waxa ay fishaan in fidno dhici doonto adduunyaduna gadoomi doonto liiliid ama leyla waa haweeney isku darsatay qab qurux iyo garaad badni waa 3 sifo oo haweeneyda isku darsataa ay raggu ka argagaxaan had iyo goor marka la arko haweeney nafteeda ku kalsoon oo dareemaysa isku filnaan iyo in aysan u baahnayn in ay go'aamadeeda iyo nolosheeda ay ragga marti uga noqoto waxaa lagu shaabadeeyaa inay tahay mid basar xun oo mudan in la naclado aadamiguna ay nacbaadaan si taa liddu ku ah haweeneyda u dhaga nugul doonista labku waxa ay noqotaa raalliyo duca qabta xataa haddii sida xaawo ay gurato miraha laga xarimay gabigii Soomaaliyeedna waxa uu lahaa madax caraarta maqasheeda koris minowsan baa dhaanta marwo hadal xun maangaablinkeed maqasho baa dhaanta xaawo waa farac ama qayb ka mid ah aadan laakiin leylo waa asal dhammaystiran oo aan cidna ka farcamin xaawo waxay tusaale u tahay haweeney kasta oo u hoggaansata ragga aragtidooda iyo go'aamadooda leylana waxay tusaale u tahay gabar walba oo isku aragta in ay la siman tahay walaalkeed oo uusan kasmo iyo karti midna dheerayn xaawo waa afo iyo hooyo daacad ah oo raxmad badan waa raalliyo gurjoog ah oo carruurteeda iyo jikada aan dhanna u dhaafin halka leylo ay ka tahay shahwo caartamaysa oo duufsi iyo damacgelin u taagan sida runtu tahayna haweeney kasta gudaheeda waxaa ku hardamaya xaawo iyo leyla oo wada jira ragga oo idilna waxay jecel yihiin inay helaan labadaas nuuc oo dumarii xaawo leh daacadnimo raxmad iyo dhaganugeyl ay ku xasilaan iyo leylo leh damac shahwad madax adayg iyo madax bannaani isla markaana mid kasta goonideeda waa ugu baaqaan sidaa daraaddeed waxay xalbidaan inay guursadaan xaawo suuqana ay leyle kula baashaalaan sida falsafadda taawiyadu ay sheegaysana waxaa jira 2 mabda oo dhaqaaq nolosha xukuma oo la kala yiraahdo yang iyo yin waa 2 mabda oo dhan iska soo horjeeda dhanka kalena is-amaystiraya midkoodna kan kale la'aantiis uusan jiri karin sheekada liiliida waa sheeko fac weyn oo ku suntan inay tahay qisada haweeney aadan qiyaantay shaydaanna caashaqday laakiin boqolkii dabshid ee u dambeeyey bay aad u shaabaxday waxaana la rumaysan yahay in faafideedu ay la kowsatay curashadii iyo xoogsigii dhaqdhaqaaqyada u halgama xorriyadda iyo xuquuqda haweenka si gaar ahna waxaa loogu doodaa in gabdhaha yuhuuddu ay waxbartay ay yihiin kuwa kaalinta ugu weyn ka qaatay faafidda sheekada liiliid bulshada yuhuuddu muddo dheer waxa ay ahaayeen bulsho tiro yar oo muxaafid ah
oo ku dhex nool bulshooyin tiro badan oo markaa ka dhaqan iyo diin duwan. bulshadaas yar ragga ayaa u talin jiray, diintana u fasiri jiray si waafaqsan aragtida bulshada abaweyga ah. gabdhaha yuhuudda ee waxbartayna waxa ay ku qanceen in tafsiirka wadaadadu ay nasuusta diinta siiyaan ay caqabad ku yihiin iyaga iyo caruurtooda. waxayna bilaabeen in ay dib u akhrin ku sameeyaan kitaabkooda towreedka iyo shuruuxda laga bixiyey. sida dhabta ahna maanta diimaha oo dhan dhexdooda waxaa ka socda dadaallo ay dumarku hoggaanka u hayaan oo ulajeedada ka dambeysa ay tahay in haweenku ay kaalin ku yeeshaan fasiraadda nasuusta diinta. maxaa yeelay haweenku meel kasta oo ay dunida ka joogaan waxay tirsanayaan in raggu wadaadadii ay diimaha fasiraan ay gacan bidixeeyaan diintuna ay macneeyaan si waafaqsan danaha ragga. hadal iyo dhammaantii liiliid ama leyla waxaa lagu sheegay in ay ahayd haweenaydii eebe u uumay si ay aadan afa ugu noqoto, laakiin hankeedu uu siin waayey in ay noqoto hooyo ubad dhasha oo keliya. markaasna waxaas kusi ula culoobay alle iyo boqorka gilgaamish. raggii aadam dhalayna waxay astaan uga dhigteen haweenay kaste oo leh qab, qurux iyo garasho aan dumarka kale lagu hafrin. waatee haweenayda isku dayday in ay rag jac iska tiraa oo aan magacyo loo bixin. xaawo iyo leylo waa laba aan kala dhicin oo isku si waxqabadkooda loogu baahan yahay. xaawo iyo leyla ma ahan laba qof oo kala duwan, balse waa hal ruux oo kaalimo kala gedisan qaadanaya. waa hooyada iyada oo ilmaha haysa, haddana shaaxa iyo yaanyada suuqa ku iibisa. qofka qoyska iyo qaaraankaba waxaa dan ugu jira in la helo xaawo iyo leyla iskaaba oo midba ay kaalinteeda ka qaadanayso halganka nolosha loogu jiro.